ساكبة هذه عطا صوب الجوك ديار بدها بحين هذا ديار ما شاء الله السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم خلي تسيس وجهك السلام عليكم السلام عليكم هذه وين السلام ومركي لبعض وأنا دكتور سلامنا هورشة أنت عم بلاوني دبودسكا يدبوشيسينتا قلمدك مرة والبنا وحايدين كم وقت وجيه فرن sababtoo guriye furan lama galay wajiye furan la galaa waa ku mahadsantiin soo dhaweynta maalintii hore halkan idinku weymid waxaan idinka iyo reer xaraalaba idin sheegay inaan la aqbali karin dad walaalo ah inay colaadi ku kala dhex jirto maalintii iyada ahayd waxaan idin sheegay in colaada la soo afjaro sida ugu dhaqsaha badanna loo soo afjaro maalintii waxaan idin sheegay idinkana codsaday inaad igala shaqaysaan inaan soo afjarno colaadaas reer xeraalana markaan u tegey waxaan isla maalintaas ka codsaday inaanan meesha ka tegayn ilaa heshiiskaasi uu ka dhaco waxaa ilaahay mahadiisa in shirkii xalay la furay oo ah gogashii daba-heshiisiinta galmudug sharafti ugu weyneed oo looga hadlayay xalay inay ahayd horumarka ay ku tallaabsadeen dadka reer huurshe iyo dadka reer xeraale laba maalmood ka hor meeshii aad joogtiin waa ogtihiin xalayna meesha aad joogteen waa ogtihiin maantana meesha aad joogtaan waa ujeedaan laba arrin ayaan rabaa inaan halkan ka caddayno mid waa waxa aan u soconno midna waa waxa aan codsanayno waxa aan u soconno waxa ay tahay in dadkii idinku matelay heshiiska odayaashii kulligood ayna raacaan hadda aniga iyo wafdigayga oo ay nala tagaan xeraale si ay ugu wareegaan guryahoodii dukaamadoodii iyo ceelashoodii walaalihiin xeraale ayaa bannaanka u taagan waxayna aqbaleen qof waliba in lagu wareejiyo gurigii ama dukaankii ama ceelkii ama wax walbuu meeshaas ku lahaa idinkana waxaa la idinka rabaa dadka xeraale jooga inaad albaabada u furtaan guryahoodii u furtaan iyaguna ay ku soo laabtaan arrinkaan idinka codsanayna waxa ay tahay idinkoo mahadsan colaadda halkan ka dhacday waxay saamayn ku yeelanaysaa taariikhda ummadda soomaaliyeed waa colaad saamaysay wiil iyo aabbihiis laba isla dhalatay laba ilmo adeero ah iyo dhammaan reer fiiq maxamed oo ah dad ilaahay badiyey haddana kulligood wada walaalo ah colaadda noocaas ah uma fiicna qalbiga uma fiicna qarannimada waxaan rabnaa inaad ballan qaadaan inaanay mar dambe nagu soo noqon dadka iyo geyga Soomaaliyeedna aanay ku soo noqon haddii Ilaahay yiraahdo ma ballan qaadeen heshiiska inaad qaadataan
ma ballan qaadeen inaad nagala shaqaysaan colaad dambe inaanay nagu soo laaban ma ballan qaadeen inaad noqotaan hormuudka reer galmudug iyo soomaaliyeed ee nabadda waa mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan ku soo khatimo annagoo u safri doonna guryihiinnii iyo geygiinni si aad ula wareegtaan waa idinkii ka hadlaayey saadaqna uu ka hadlaayay in deegaanka la hormariyo deegaanaan amnihayn lama hore mari karo deegaan colaadi ka jirto dowladna ma imaan karto hay-adna ma imaan karto maadaama aad heshiiskii qaadateen waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee federaalka inay u yimaadaan gacanna siiyaan shacabka reer huurshe iyo reer xeraale waxaan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala dalka soomaaliya inay iyaguna sida ugu dhaqsaha badan uga soo howlgalaan huurshe iyo xeraale annagoo kula xisaabtami doona waxa ay halkan ka qabteen ugu dambayntii dhulkan waa dhulka culummada waa dhulka shuyuukhda waa dhulka ducada iyo iimaanka waxaan rabnaa in lagu aqoonsado taas lagu xasuusto ma rabna mar dambo in lagu xasuusto dhul colaadeed iyo dhul dagaaleed dhulkii aan ducada u soo doonan lahayn weeyaan sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan soo celinno taariikhdii sharafta lahayd waa mahadsantihiin xeraale waxaa lagu yaqaanay inay tahay dhulkii culummada iyo ducada sanadihii ugu dambeeyey waxaa loo aqoonsaday inay ahayd dhul colaadeed maantay waxaan isugu nimid inaan baabi'inno taariikhdii 3 sanoo la soo dhaafay ee khaldantay oo aan bilowno taariikh cusub oo ah tii aad hore u lahaan jirteen dhulkii culimmada iyo halyeeyada haddii ilaah yidhaahdo dhammaan dadka halkan ka soo jeeda oo ilaahay barakeeyey ka dhigay dad aad u badan haddana isku qoys ah kulligood soomaali kuma jiraan dad sidaas u badan haddana saas isugu qoysa laakiin nasiib darre ay colaadi soo kala dhex gashay
waxaan aad idinkaga mahad celinayaa labadiinna dhinacba inaad aqbasheen inaad qaadataan dhab heshiisiin dhab ah isu timaadaan iscafisaan qalbiyada iyo gacmaha isu furtaan waxaa ila socday dad walaalihiina oo dhuusamareeb iyo huursho naga soo raacay oo u yimid inay magaaladooda soo degaan guryahooda iyo iskuulladooda iyo ceelashooda inay dib ugu soo laabtaan diyaar ma u tihiin inaad soo dhowaysaan si fiican idinma maqlin diyaar ma u tihiin inaad soo dhowaysaan ma ballan qaadaysaan inaan dhib damba dhacayn ma ballan qaadaysiin waxaan leeyahay dadkii walaalihiina oo halkan u yimid guryahoodii iyo xoolahoodii waxaan rabnaa in si shuruud la'aanah loogu soo dhoweeyo caawana guryahooda loo furo sidaasi ballan ma tahay halkaas waxaa ka muuqatay inaan karfan guduudan ku xidhnay colaaddii god aan u qodnay aan ku duugnay soo sidaas ma aha taasoo ka turjumaysa mar dambe inaanay huurshe iyo xeraale colaadi ka dhici doonin oo lagu aqoonsan doono nabad keliya soo sidaas ma aha waxaa kaloon isku raacnay annagoo wada jirna inaanan u dulqaadan doonin qofkii isku dayda inay colaaddaas soo noolayso meel ma uga soo wada jeesanaynaa qofkii isku dayda inay colaaddaas soo noolayso si fiican idinma maqlin meel ma uga soo wada jeesanaynaa waxaan rabaa inaan idiin sheego dawladdiinna oo dhan oo ugu horreeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda labada aqal kulligood way isku raacsan yihiin wayna isku garab taagan yihiin inaad aastaan colaaddan kulligeed dawladda federaalka oo madaxweynuhu ugu horreeyo waxay aaminsan yihiin wixii maanta halkan aad ka samayseen inay tahay taariikh cusub oo isqoraysa taariikh cusub oo aad u qorteen ummadda soomaaliyeed oo ah idinku galmudugti laysu keenaayey dib loo heshiisiinayey inaad hormuud ka noqoteen una furteen albaabkii nabadda iyo horumarka waa ku mahadsantihiin waa wax weyn ood bilowdeen laba habeen ka hor waxaa la lahaa xeraale iyo huurshe maxaan ka yeelnaa xalo waxaa la lahaa ku dayo huurshe iyo xeraale ku dayo reer foqo maxamed halkaasaad maraysaan waa idiin ambaleelayaa taariikhdu waa intaas waa wiil iyo gabar waa odayaal iyo dhallinyaro iyo siyaasiyiin ku dhiirada inay sameeyaan wixii hore wax ka duwan taasaa noo keentay maantay inaan ku guulaysanno inaan godkii ku ridno maradii guduudneed idinkana reer galmudug ay idin yidhaahdaan waxaan rabnaa inaan ku daysanno yaa ka fikiraayay laba maalmood ka hor in la yidhaahdo xeraalaha lagu daysado caawa waxaad joogtaan inaad tihiin hormuudkii reer galmudug iyo hormuudkii soomaaliyeed yaanay idinka fakanin gacantaa laydiin soo geliyey dhammaan hay-adaha dawladda oo halkan jooga amni iyo wasaarado waxaan leeyahay waa inaad boqolkiiba boqol la shaqaysaan walaalaheen la adkaysaan nabadda la dhuudhuujisaan waxa ka dhiman tababarka ay doonayaan aad u furtaan baahida ay qabaan aad kala shaqaysaan dhammaan hay-adaha horumarinta dawladda waxaan leeyahay laga bilaabo maanta waa inaad la shaqaysaan reer huurshe iyo reer xeraale baahiyaha ay qabaan oo deg degtaana waa inaad sida ugu dhaqsaha badan u caawisaan hay-adaha caalamiga ah oo ka howlgala dalka soomaaliya idinkuna dalkan waxaad u joogtaan inaad ha qabtirtaan baahida dadka soomaaliyeed maanta waxaan joognaa meeshii ugu baahi badneed dhammaan hay-adaha horumarinta iyo gargaarka waxaan leeyahay waa inaad sida ugu dhaqsaha badan u timaadaan huurshe iyo xeraale waana idinkula xisaabtamaynaa inaad caawisaan dadka reer huurshe iyo reer xeraalena waxaan leenahay waa inay dawladdu idinkala shaqaysaa sidii aad u heli laheedeen amni waara
inaad u heshaan ciidan boolisa oo halkan ka yimaada la idin tababaro la idin qarameeyo idin dhexeeya oo idin ilaaliya amniga inta laga gaarayana dawladda federaalka idin kala shaqayso amnigiina si amnigiina u sugnaado laakiin amniga saxda ah oo muhiimka ah waa midka qalbigiina ku jira waa midka ay tahay inaad iscafisaan waa midka ay tahay inaad aqbashaan colaad waa lagu daalay nabad uun baa wax lagu hela waa midka ay tahay inaad aqbashaan midnimadu inay xoog tahay kala qoqobnaantuna ay hoog tahay waa midda ay tahay inaan halkan ku aragnay dad walaalo ah oon sanado issalaamin inay maanta issalaamaan waa inaan midda aan ku aragnay in wasiir saadaq ay tiraahdo hooyo halkan joogta hooyadiis baana ay hamuun u qaado isaguna sidaas oo kale waa midda halkan joogto ah inay walaalo is arkaan aan horey soo arki jirin lama qaadan karo idinkoo dhashii culummada ah dadkii laga soo gaaray diinta in halkan ay ka dhacaan wax noocaasa mar dambe maalintii horan halkan idinkugu imid waxaan idinka ballan qaaday in dawladdu ay ka shaqayn doonto in laga dhaliyo dib u heshiisiin halkan waxaan idin sheegayaa inaan ka shaqaynaynay dhammaan hay-adaha dawladda oo dhan baarlamaanka labadiisa aqal xukuumadda xafiiska madaxweynaha kulligeen inaan ka wada shaqaynaynay kuna minaysnayn inaan keenno guushan idinku aad leedihiin haddana diyaar aan u nahay inaan idinkala sii shaqayno laakiin idinka ayaa la idinka rabaa inaad noqotaan hormuudka nabaddaas soomaali baa idin fiirsanaysa adduunyadaa idin fiirsanaysa taariikhdan cusuboo qorantay oo iftiinka ah codsi ma aha waa idin baryaynaa idinkoo mahadsan ha ku celinina dadkiinna taariikhda mugdiay wiilashaas dhallinyarada ah iyo gabdhahaas dhallinyarada ah waxay u baahan yihiin iskuul waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin mustaqbal sidii hore way ku soo daaleen kuna heli maayaan haddii aad ku sii wadaanna adduunyadana waad ku halaagmaysaan aakhirana waa laydinku cadaabayaa waxaan leeyahay soomaali colaad way ka soo daashay walaalayaalow mar dambe yaanan u dulqaadanin reer xeraale iyo reer huushe allah barakeeyo ilaahay dhib dambe kuma soo celiyo soomaalida kalena ilaahay ha uga dhiga iftiin ay iyaguna tusaale ku qaataan waxaan leeyahay qaybtaydii iiga aadanayd ra-iisul wasaaraha duco iyo dadaalba waan idinku bixiyey inta kana idinkaan idinkaga tegey waa mahadsan